haddaan af xumaanin adin ma xumaado asalku waxa weeya wargaalada la noosheen maaragtay markay wada dhaqmayaan wax kastoo ka dhaxeeya hadal cid isku mudaysa arki maysid walaalkay hadal ku mudda raganimo maaha cid hadal isku mudaysa arki maysid xataa af Soomaaliga waxaad moodaa inagu dhaqanka Soomaaliga waa dhaqan adag nin Soomaaliyeed maalin wuxuu igu yidhi waa nin pilot dawladda Soomaaliyeed u dirtay Arizona joogay dabeetana meeshii wax lagu dhiganayay buu yidhi oo pilotnimo lagu baranayo ayaan kaatiin yaroo gabadh iyo inan islaaniya inan ay dhashay haysataan maadna aniga nin kale oo Soomaaliya weeyaan buu yidhi kaafiga iyo waxba laga iibsaday waa ka iibsanaa marka inantii iyo islaantan meesha jooga caday liitaan maalintii dambe islaantii iyo dhow waxay ku tiray buu yidhi kaale maxaa afkiina lagu yidhaahdaa bay igu tiri buu yidhi please waxaan idhi buu yidhi kuma jirto please ma male waan fikiray buu yidhi wixii aan la odhanay min fadlaki bilixsaanaki waxaas waa carabi buu yidhi waan baadhay af Soomaaligiyo ereyga please ba waan waayay buu yidhi wax la yidhaahdo deetana waxaan idhi buu yidhi kuma jirtoba markaasee waxay igu tiri buu yidhi haddaan gartay maxaa idiin diiday dadka kale markuu xiibsanayo please one cup of tea ayaa la yidhaahdaa idinku koob shaah keen awaamirtana wadaan maxaa idiin diiday inaa kelmad fiican tidhaahdaan يعني إلا حد من سوماليين أنتوا فكروا أفكي سبوا كوايا واحد بليس الويد هذا شحر لماذا إيه هذا الكإنجاجن يقلف بالكو شو قلف كل رجل نمام معها هنا تقلف سناته قفض ذاك نقطة رجل نمام معها سادرات الباقي له القرآن كوحنا ليه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن واحد الضامها يقول كنت له هذا باقي له يري هذا الكيس ونكسن هذا إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا إلهي وحلي واي محل لي هذا الكفي عن هدهان وحل قطع علينا يا واي الشيطان كل حدو دينه فساد ردا أبو دونية يعني اسكت أبو دونية شيطاننا إنسان كعدو عدو نمدي سواي عد هيبوي هيبا إلهي سبحانه وتعالى إذا كلمات كانت ضغط كفتك ككرد جيسو أياه وحندتك مشرقية مغربك لجيي waxaan kala durkiyay waa qabiilkan aad yasaysa ama reerkan aad maagaysa ama hadalkan aad qofka ku mudaysa ama weerahan wada adag ayaa waxa qof kala fogeynaya nabigu wuxuu gaarsiiyay kaleey salaatu wasalaam qofka muslimka ay qofka kale muslimka ah hadal xun ayuu ku oran bale wuxuu nabigu gaarsiiyay in la yiraahdo wajiga fiicani wajiga bashaashka ah alwajh الطلق ayaa sadaqa baa la yiri adiga oo afka yarabburayo caraysan inaad walaalka ka hor iman hatta هذا سكبا عريسانته ولالك الله كلانته إلى نوع من الهشاشة إلى نوع من بشة وهشة ذا يورنجرين إلى موتشيسه وحولالك موتشين إلى كفر حسنتين كلانتين أنا كادر من إن هذا عريسانته هي إن الضوء يسطونا هب يوحى إن لا يسبق هذا عمل نبر لا يسكن لفتنا نبي عليه الصلاة والسلام حليه لا يشير أحدكم على أخيه السلاح midkiin walaalkiin warankiisa ku fiiqin ba nabarkiisa xaqiisa hatta hadaad waran sidato xaqo hore ha u qabanin baa la yiri oo sida ha u qaadan xaqo dadka uu fiiqayo uu mudayo way in shaytaan ka fakiyaba uu qof muslima ku dhaca la arkaabu nabigu alayhi salaatu wasalaam waxlana qadaayadkan marka aan tilmaamayo dadku way yaraysteen laakiin waa dunuub waaweyn nusuusta quraanka iyo xadiidka marka la eego وكبائر حن إيه نميمنما إيه يسد إيه سخرية إيه وكبائر قرآن كردية نهيي وذنوب وين ذنوب تاسي هداي الدلين هذا إيه ويلك إيه دتك نحدو هذا كبحضه وحين نقول كرر بلشة يسوسه هلوده وهندي بنحدة دولين بلشة ولا لو بكرته وان هذا الكيس كمدينين بلشة وداعي كرته نلاش دمانتد سيدا وجد انت انا اصلاح كور من يفضلي سي قرانك يا حديثك صار وحن رباينا ندينت المامو والفساد ذات البينك ان حماطه وحن يربح حمايه ددكو انو ولا لوبنا افعاشا كوبن
ee waxisa siinta leh ee ismaamuuska leh ee isa soo dhowaynta leh ee isa salaanka leh ee xidhiidhka samaynaya ayaa keena qofka bini aadamka in qalbigiisu furmo. bini aadamku dhagax maaha, qulubta bini aadamku wax iska xajaro oo aan caqliga in wax loo sheega maayo ana cawaatiftiisu isbedelin maaha. cawaatifta bini aadamku wax fudud baa cadhaysiiya, farxiya, kiciya, jeclaysiiya, necbaysiiya. qofka soomaaliga waxaad moodaa inaanu insaanka markaa si wanaagsan u fahmin. insaanka haddaad si fiican u fahamto waxay keensanaysaa cawaatiftiisa iyo mashaacirta, dareemadiisa inaad ilaaliso. walaalka haddaad dareenkiisa ilaaliso weligaa walaalba ahaanaysaa. bulshadu hadday tidhaa wallahi ninkaas waa nin muxtarama oo dadka macaayo, wax weyn weeyaan. waa qof aan dadka hadalka ku dhimin. waxaad moodaa shirarka markaynu isugu nimaadeen la yidhaahdo ha la hadlo, in badan oo inaga mid a hadalkoodu waxa weeyaan uun reer hebel waxaan ku sameeyey maanta ma arkaysa inuu la yidhaahdo saan hadallada ugu mudmudo iyo waxaan sameeyey, halkay ka ahaan lahayd inuu isku dayo dadka inuu isu soo hiloobo oo boogaha jira inuu asturo oo wax dhadhabo oo wax hagaajiyo, ayuu isna wuxuu rabaa inuu yidhaahdo ma ku muday. raganimo markaa waxay inoo noqotay inaad ninka kale ka cadhaysiiso. raganimo waxay inoo noqotay inaad reerka kale muddo ama maagtid ama ka xanaajisid. haddaba islaamka haddiiba ay dhacdo, maadaama bini aadam la yahay, qof cadhooda la waayi maayo, qof sahwiyey la waayi maayo, mid qafla ay ku dhacday la waayi maayo. laakiin marka ay taasi dhacdo waxaa layna amray haddana wax kale oo khusuumada ilaaliya, oo ah inaynu baranno dulqaadka iyo cafwiga iyo saamaxadda inaynu baranno. wixii way dhaceen ficlan, wuu ku caayay, wuu ku maagay, waxbuu kaa sheegay, ma qasabba inaad response bixisaa? maya. ilaahay wuxuu qur-aanka inoogu ammaanay janno carduha asamaawaat walard uciddat lilmuttaqiin. yaa rabbi ka waran janno cirka iyo dhulka cardigeedu ballaadhayo loogu talagalay inta ah. jannada yaa leh ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa kuwa leh muttaqiinta la sheegaya waxa weeyaan waalkaadimiina alghayda waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin. ilaahay wuxuu ku tilmaamay dadka jannada tan lihi inay yihiin kuwa cadhadooda qarsan kara. ficlan waa lagugu yidhi wax kaa cadhaysiiya, ma qasabbaa inaad cadhada ka jawaabtaa? ma qasabbaa inaad feertantaa? ninnimadu nebi maxamed wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, war ninka xooggaa ma taqaanin, ninkaan dhinaciisa dhulka la dhigin ee xooggan shadiidka ah. dee waxay yidhaahdeen waa ninka rag markay isgalaan dhulka ku hubsada, kaasaa adee ninka xooggan. nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kaa maaha. ninka xooggane la sheegaya waa ninka markuu cadhoodo naftiisa hayn kara buu nebigu yidhi, hanan kara. xooggu maaha sida dibiga inaad muruqya kuusnaato oo aad garan yaroo gacbogaaban ku hoosato, kaas ma aha, wax badan samayn mayso kaasi. xoogga dhabtii waxa weeyaan inaad noqoto qof miisaaman oo isagoo cadhaysan erayada afkiisa ka soo baxaya ficilkiisa controli karo, caqliga uu isticmaali karo. soomaaligu hadduu cadhoodo dhiishiyo dherigaba goortuu jabiye wax walba baabi'iyo ayuu leeyahy meel baan ka dhacaya ninka hana la wada hadashiyo. oo maxaa milka dhaca intan leg maxaa keenayay? waxay ahayd inaad isxejin karto. ninnimadu taasay ahayd. waxaa layna faray markaa waalkaadimiina alghayd waalcaafiina can innaas, kuwa dadka cafiya. mararka qaarkood cadhada intaad dibirtaabaad iska tegi kartaa. waxaa ka sii qurux badan inaad iska cafidaba, waxba aanad dibirsanaanin ay kaa dhegto. waxaa ka sii khayr badan inaad weliba wanaag u samayso. oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qofkii xumeeyey wanaag u sameeya, idfac bilatii hiya axsan. maxaa la yidhi? faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim. kii xumaa kugu sameeyey haddaad haddana u abaalguddo oo aad wanaag adigu siiso
wuxuu filayay de inaad ka aargudato, waayo wuxuu dareensanaa inuu godob ku jiro. laakiin haddaad godobtii intaad cafido weliba soo dhawayso o wax siiso, ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyay ninkaa iyo adigu waxaa isku noqonaysaan kaanahu waliyun xamiim. sadiiqaaga dhow ee aan cid kaa xigtaa jirin ayuu soo baxaya. islaamku intaasoo masale markuu tilmaamay oo laynagu booriyey ayaa waxaa la tilmaamay kadib inaynu debdemiska isticmaalno. markii cafiskaa laynagu booriyey, cafiskani xad buu gaadhsiisay uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, maalinta jimcada mise maalinta khamiista iyo isniinta buu xadiidku ahaa, ayaa ilaahay ummadda loo cardiyaa acmaashoodii toddobaadkan wixii ay sameeyeen. isniin kasta iyo khamiis kasta xagga rabbi baa loo bandhigaa. walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu jeclaa labadan maalmood inuu soomo oo isniinaha iyo khamiisaha ah si camalkiisa loo rafciyo isagoo sooman. laakiin nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam isagoo sooman haddana labada muslimiinta ee ishaysta ee la kala fujin kari waayey, haddii isniinta iyo khamiistii markaa camalkooda rabbi loo cardiyo loo bandhigo, in ilaahay yidhaahdo labadaa arrinkooda dib u dhiga, camalkooda oo dhan celiya xataa yastalixa, andiruu haadayni xataa yastalixa, labadan ha la joojiyo ilaa intay ka heshiinayaan. maxaad u malaynaysaa haddii acmaashaadii xataa saalix ahayd ee soonka iyo salaadii iyo hadday xagga rabbiba tegi waayaan oo meel dhexe lagugu soo celiyo liajli inaad la heshiiso walaalkaaga kale muslimka ah. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa man hajara akhaahu, qofka walaalkaaga muslimkaa lama ogola 3 maalmood ka badan inaad ka hijrooto. 3 maalmood waa muddo cadhadu ku jabto, laakiin ka badan haddaad hijrooto waxaa la yidhi maxay? fa huwa ka safki dami, waxay la mid tahay sidii aad dhiiggiisa daadisay. masaa'ilka kan waa tashriicaad tiro badan leh oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo jideeyey, laynooguna jideeyey inaynu ku ilaalino walaalnimadeenna iyo dadnimadeenna. haddiise dhibi ay dhacdo, laba isqabta oo nin iyo gabadhii ay ka dhex dhacdo, kuwa shuraaka ah oo adduun isku haya ay ka dhex dhacdo, kuwo qabiil isku haya ay ka dhex dhacdo, kuwa dowlada isku hayo muslima ay ka dhex dhacdo, daa'ifaad ay ka dhex dhacdo, ilaahay wuxuu ina faray subxaanahu wa tacaala inaynu walaalaheen islaax heshiisiinno. fii suurati alanfaal rabbi subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramayaa saxaabadii nebi maxamed. basharka khafladu mararka qaarkood waa ku dhacdaa, iyagoo ilaahay rasuulkii maciisa ah, iyagoo soo hijrooda oo maka adduun iyo xoola waxay lahaayeen kaga yimi oo u hijrooday ilaahay dartii, iyagoo naf iyo maalba islaamnimo u huray oo furan dagaal jooga, beder taagan, iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala gacantooda uu gaal ku jabiyey, iyaga uu nebi moxamed ilaahay ka baryaya uu leeya ilaahayow sala allahu calayh waalih wasalam, kooxdaas maanta hadday jabto dunida dib laguuga caabudi maayo oo islaamku wuu dabar go-ayaa. kuwii caynkaa ahaa ee dirirayay ee ilaahay dartii u taagnaa ayaa waxoogaa xurgufi dhex marta oo ku saabsan haniimadii lasoo qabsaday. ragga badh haniimadii bay ururiyeen, xoolihii gaaladu ay seetay. ragga badhna gaaladii la jabiyey bay raacdadooda ku jireen, waa sii eryayeen. ragga badhna nebiga calayhi salaatu wasalaam inaan meel kale looga soo gelin bay ilaalinayeen oo gaadh ka hayeen. dabeetana hantidii baa waxoogaa murani ka dhacay. qoladii urursatay inay tidhahdo dee annagaa dhacsanoo qaadanay, qoladii erida ay tidhahdo miyaa dhicin kari lahaydeen haddaanan anagu ragga sii wadin, qoladana ay tidhaahdo annaba nebigaanu mashquul ku ahayn inaanu ilaalinee xole waa guran karaynay. nimankii magaca iyo maamuuska islaamka ku ahaa ee ahlu badar ahaa, ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaantoodii iyo waxay dhigeen iyo waxay faleen intaan laga warramin waxaa laga warramay kayskaa yara fudud ee adduunka ku saabsisan.
سورة الأنفال وقصدي بدر كورمي إلهي وحكم بلابيا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول لكن إلهي سبحانه وتعالى محكو حكسيه وحلو حكسيه فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إن كنتم مؤمنين إلهي وحليه سبحانه وتعالى ورى لك عبصدا وهجاتية وأصلحوا ذات بينكم وحا اسكو هيسان دحدينا كاكو الله قبل أبو شقضها الله ترتربا إلهي سبحانه وتعالى